qofka diabetiga ah ee intaa cuna ee qada ka dhigta waxba uma baahna kale hilib iyo waad kaga maarmi. bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamed. maanta waxaan ka hadlaynaa cudurrada dadka aafada ku ah ee loo yaqaano macaanka. macaanku waa laba qaybood, mid waa waxa weeyaan kow baa la yidhaha, midna laba. ka labaad waa ka markay dadku waaweynaadaan ku dhaca oo ay keento cunto xumada ay keento. ta ka koowaadna waa ka marka wax caruurtu ku dhalato oo kale, iyada oo xubintaa kolka horeba sida caruurta wadnaha xanuunkaba ku dhalato oo kale ay qofku isagoo yar u qaado oo aanay xubintaysa qaybaha ka mid ah aanay shaqaynayn. kaasi iyada de maaro looma helayo, xubintii baaba daciifa. laakiin ta markuu dadku waaweynaadaan ilaan canabi caanbax baa tahay buu yiri, ka caanbaxay ee ummadda aafeeyey ilaa 700 milyan oo qof inay qabaan adduunka imika loo malay ay qabaan, waa kan loo yaqaano ka labaad diabetic 2ga ee marka dadku waaweynaadaan. kaana waxa keenaya wax kale maaha, waa cuntada aan wanaagsanayn ee la badsado, carbohydrate-ka loo yaqaano. haddaynu cuntooyinka fiican cuno ma badanayo, laakiin marka cuntada xun la cuno wuu badanayaa. processed bariiska waa processed, bariiska cad waa inooga sheegnay waa processed. baastada iyada hadalkeeda badaa, sonkorta cad, waxaan wixii warshada inala furbaxay waxaasoo dhan baa laga qaadaya, iyaga ayaa dhibaatada u keena. marka muhiimaddu waxay tahay ka hortagga cudurka. waxay yidhahdaan cadaanku iyo dadka saynisku waxa ka fiican preventionka ka wanaagsan curinka. marka ka hortagga ayaa ka wanaagsan. maanta waxaan idin hayaa cabitaano aad iyo aad ugu wanaagsan oo ilaa 10 mid waxaad shubanaysaa ilaa 10 adigu 2 fur oo kale meelahaas ayaad shubanaysaa. maasha allah, cabitaanadani waa cabitaano aad iyo aad ugu wanaagsan. moor aad adigu sonkortaada iyo cuntadaada kaantarooshaba moor diabetic-gaaguna hoos u dhaco biyaad ku darsanaysaa. aroorta hore ayaad cabaysaa. waa dadka haddaad diabetic tahay iyo haddii aanad haynba waa wax wanaagsan oo aad iyo aad u muhiima inaad cabto kuwan aan kuu sheegayo. biyayowgan aan idin sheegayo waa inaad cabto, waayo waxay caawinayaan. macaanka la sheegaa waa sonkortii oo dhiigga raacday uun. adigu kasoo qaad bankariska iyo arrimaha saynisyadu waxay ula baxeen, iska dhaaf adigu. waa sonkortii oo dhiigga raacday, qaybtii ka shaqaynaysay ee kala sifaynaysay baa yaraatay oo howlgabtay. howlgabkaa waxaa ku keenay baynu dhi cunto xumo, cuntada oo la hagaajiyo, laguumiska oo la cuno, digiraha, garowga, masagada kow ka tahay oo cuntooyinka ugu wanaagsan diabetica. waayo shuurada ama galeydu waa macaan baa ku jirjira, laakiin kan kale waa number 1 qof macaan qaba ayuu u yahay. khudradaha greenka ah adduunyadaas oo dhan baa u dawo ah. markaa waxaan cabitaankan waxaa laga sameeyey amla qofkii garanaya waa midho yaryar oo u baxa wadanka India. anigu wadankeena inuu ka baxo waruma hayo. amlada laga sameeyey kan waa Kerala, aad buu isaguna macaanka ugu wanaagsan yahay. cabitaankiisa haddaad 10 miligram iyo 10 miligram inta 20 isku darto aroorta hore cabto, maasha allah aad iyo aad buu kaaga hataa haddaad cartaa cunto. cuntada faraha badan dadka macaanka qaba weydishaa. soomaaliduna waxay tiraahdaa mar walba waa inaad 5 minute ba wax cunto, 2 saacadood ba haddaad macaan qabto. no, cunto borotiin la cun oo borotiinka dhirta ka yimaada u badan, oo afakaatahani ku jiro, oo ay ku jirto masagada iyo digiraha iyo ay ku jiraan. cun alaabta cun, iska ilaali alaabta kale ee ay carbohydrate-ka, sugarka iyo baastada iyo bariiska iyo waxaana iska ilaali. yaraysa haddaad wax ka cuntana malqaacad, laakiin noocyada wanaagsan soo iibso. hadda way isdhaantaa baastadaasi waa whole meal, way dhaantaa tacad, waayo tan galkii lagama saarin, way fiican tahay. sidaan sheegnay vitamin C-gaaga inaad ilaaliso oo aad waxyaabaha vitamin C-ga la aad u cunta. amla vitamin C bay leedahay, aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. dawo ka wanaagsan anigu garan maayo oo loo cuno. labadaa haddaad aroorta hore in yar oo baalanisa ka cabto, midkii aad ka hesho ama dacar, dawada waa lagaa dhimayaa. laakiin haddaad dhakhtar la socoto, dhakhtarkaaga la soco, waayo haddaad dawadiina ay hay kugu tahay kana aad cabto, waxaa laga yaabaa inay sonkortaadu hoos u dhacdo. marka moor aad sonkortaada kaantaroosho maalintii 2 goor haddaad wax cunto oo aad macaan leedahay waa okay, dhibaato badan ma qabtid.
laba goor baa kugu filan oo cunto wanaagsan aad cunto ku noqnoqoshadu mar walba sonkortaadi baa kor u kacaysa mar walba sonkortaadi waayo cuntada aad cunayso iskaba dhaaf iyada waxa roodhi iyo waxaas iyo waxaana iskaba dhaafa wabilaahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu jirkaaga oo la jarjaro oo amputation lagu sameeyo laakiin waxa weeyaan cudurkaa ka hortagiisu waxa weeyaan sonkorta oo la maamulo sonkorta haddaad maamuli karto aad iyo aad ayaad u ladnaanaysaa aanay heerka xun ee inuu kaliyahaaga fadhiisiyo jirkaaga kaliyaha inuu fadhiisiyo jirkaaga waxyeelo waad ka badbaadaysaa sonkorta la maamulo maxaa u macalina cuntada wanaagsan oo la cuno haddaad adigoo macaan le cuntadii aad macaanka ka qaaday weli sii wado dee caafimaadkaagu saa uma sii kordhayo laakiin haddii aad cuntadaadii maamusho oo aad bedesho wax badan baa ka kordhaya cuntada akhtarka ah kani waa spinach wadamadanaa laga helaa yurubta spinach wadankeena costa la yidhahdaa baa la yidhi waa laga helaa kanina waxa weeyaan kaylkana isaguna wax la waxaad green jannaduna waa greenkaas u badso cuntadaada daan iyo isma laha qof macaan qaba number 1 ka ah waa kan garowgeenii isaga waan karinayaa maanta maasha allah digirtana waan isku darsanaynaa aha maasha allah garowgan faa'iidada ku jirta lagama sheekayn karo faa'iidadiisa tan ka sheekaysan wuxuu yahay wuxuu ka yahay waxyaabaha caawiya macaanka garowgu waxa weeyaan aad iyo aad haddii aad doonayso inaad macaankaaga maamusho quraac ka dhigo casho ka dhigo qado ka dhigo imika waan soo karinayaa balse yaabahan u kariyana arkaya waxyaabahan ku daro insha allah kan isaga sidiisa in lagu cunaan rabaa markaa waxaan ku darayaa sidiisaan salad ugu darayaa khudradoo dhan waxaad haysato ku dar maasha allah spinach ku dar maasha allah waa ku buuxsamayaa qadadaadii way dhan tahay qado kale uma baahnid maasha allah rumaan ku dar maasha allah qofka diabetiga ah ee intaa cuna ee qado ka dhigta waxba uma baahna kale hilibii waad kaga maarmi waa salad cajiiba oon la aragoon la maqal digirtii wataa iyo garowgii oon isku kariyey maasha allah macnaha